Ethiopia ay ku leedahay magaalada tan Nairobi ayaa mid ka mid ah jaaliyadaha ka soo jeeda dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxa ay ku taageerayeen dhismaha mashruuca biyo xidheenka ee webiga Abai waxa kulankaasi ka qayb galay oo warkan nooga diyaariyay Cabdicaziz Ibrahim Ali Dheere. jaaliyada guure dalkani Kenya ee munaasabad balaaran waxay ku qabsadeen safaarada Ethiopia ee ku leedahay dalkani Kenya. munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay culumaadiin, siyaasiyiin, dhalinyaro iyo haween ayaa waxa ujeedkeedu ahaa mid ay jaaliyadu uga qayb qaadanayso biyo xidheenka Abai iyo sidii ay deegaanada ay ka soo jeedaan uga heli lahayn saamiga ay ku leeyihiin dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. waranta waxa madashaada la ka soo jeeday safiirka Ethiopia fadhiya dalkani Kenya Dina Mufti iyo la taliyaha ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka deegaanka iyo dhirta federaalka Ethiopia. moqatachu kun yaan dikan ndayo indikatl arrinta laakiin arrin hal maalin ay sanoqon ቤታችሁ ስለሆነ ጊዜ የግድ መደረስ የለበትም ድንኳን መተከል የለበትም መታችሁ ምንድነው እየተካሄደ ያለው ምን እንስራ ለሀገራችን ምን እናበርክት ምን ነገር ጠይቁ ወመኑ عليك باهنا لماذا وضعين محال وضعين محال أمرك لغو قرنا محال سنتكسرنا ودين فرقنا ويسان ايضا نرجعنا አብረን ስለሰራን አብረን ስለተንቀሳቀስን አንድ ስለሆን ሰላማችን ስለጠበቅ ኢትዮጵያ ዓለምን ባስደመመ ደረጃ በፈጣን የልማት ጉዞ እንዳለች የምናውቀው የምንሰማው ያየነው ያለው ጉዳይ ይመስለኛል። ስለዚህ የዛት አንመጥ አነጋገር ሱፐርሰማይ አንደና ላይ የወጣና የገለለ አቆለ ሸበና ወሚት አቁሎ ወሚዶጆ አናጋ መስራሃት ተረዳ ነው ማራሳ sidoo kale waxaa madashaada la ka soo jeediyay aadan cali siyaad barofsir cabdisalaan khaliif cadaawe fartuun cali xuseen cali salaad cali oo dhammaantood ka mid ah jaaliyada guure dalkani Kenya. sidaa dalka waxa dawladda federaalka Ethiopia ka xusayna hadaan ilaa kumantiga beesha guure beero boodino macaan malihin mana yeelan doono oo kala galka iyagu waxa weeyaan inaan danaha deegaankaasi leeyahay dhamaystirno kadibna aan adeegyada kale ee dawladda dhexe Ethiopia ka qaadan waxaan malaynayaa ma dhicin hadda ka hor Ethiopia cusub waxay ku guuleysatay in ay habeeso xagga dhaqaalaha xagga kaabadaha dhaqaalaha xagga amniga haddii ay nahay jaaliyada ku dhaqan dalka Kenya mar walba waxaan rabaa inaynu ahaano dad mid ah oo xaqa ka maqan iyo xuquuqdooda wadanimo ka raadsada dalka Ethiopia si ay u gaarno hadafkeena aynu wax la qaybsano shucuubta kale ee Ethiopia ee ku dhaqan dalka. inta ay munaasabadu socotay waxa shahaadooyin la guddoonsiiyay qaar ka mid ah jaaliyada lacagaha ay ku deeqeen mashruuca biyo xireenka Abai waxaana soo gunaanuday madasha gudoomiyaha jaaliyada guure dalkani Kenya Aadan Rashiid. barnaamijkanagani intan kuma ekaan doono waa mid socon doono hadduu Allah awood leedmo in allaala inta aan ka gaareyno higsiganaga. Cabdicaziz Ibrahim Ali Dheere, On Cable TV, magaalada Nairobi.